gala nabadda insha Allah biidhnillaahi tacaala qof kasto inaga midana waxa laga rabaa inuu ka shaqeeyo sidii nabadda aynu ku gaari lahayn waxa milge iyo maamuus mudan sidoo kale oo aan si gaar ugu ducaynaya Suldaan Saciid Cabdisalaan oo u guntaday in dadka walaalaha ay walaalnimadoodii wada jirkoodii darisnimadoodii iyo waxisaanshahoodii uu ahaado midaan abad sal guurin waxay la tahay gogashii madaxweynuhu dhigay albaabkeedii maanta uu furmay waa furan yahay maanta waxaynu helnay dawlad wanaagsan dadka dhageysanaysa madaxweyne qaniya oo qalbigu buuxo oo dadkoo dhan raba marka koowaad waa u mahad celinayaa boqol Faysal Cismaan Faarax Xamuud Baraag baa loo yaqaan boqor Faysal Baraag aad baan ugu mahad celinayaa boqorku waxaan kala ugu mahadnaqayaa qadadu waxay daaran tahay oo iyana hoosta kaga jira oo kulli faaqan nabadaynta iyo barwaaqaynta beelaha bay daaran tahay ninkaas aad iyo aad buu u dadaalaya Allah la qabto Allah la garab galo xagga nabadda iyo sida uu shaqeynayo alxamdulillah waa ilaahay mahadi mar hadii maanta beel kaliya lama casuumini ummaddu reer ceergaaba meesha waa ku dhan yahay anigu sidaan arkayay waa lagu dhamaa meesha warsangeliyo gaslabe toonna ma hayne waa magaalada ceergaaba waa fadhiday meesha sidaas aan leeyahay salaadiin baa fadhida boqorraa fadhiya ceergaaba waa ku dhan tahay marka aad iyo aad baan runtii boqorka u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay way isku leenahay oo nin baa faraskiisa intuu u bogay dhowr jeer markuu rogay buu ka helo yar boqor way isku leenahay faraskeerow way isku leenahay marka inagu markaan gobol ahaan ka tagno saaxiib ahaan iyo yacni booskaaga waanu isku leenahay qaab oo beesha warsangeliya beesha ogeyslabe iyo dad badan u sameeyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baanuna leenahay jasaakum Allah khayra boqorku wuxuu ku suntan yahay ilaa muddo dheer nabadda gobolka aad iyo aad buu ku suntan yahay aad buu uga shaqeeyaa wuxuu leeyahay ilaahay hala garab galo dhammaanteena ilaahayna la garab galo nabadda aynu wadno Faysal Baraag waa u mahadnaqaynaa man laa yashkuru الnaas laa yashkuru Allah baa la yiri mahadnaqa uu leeyahay casuumadiisuna tan ceergaaba qura maahe Hargeysaan ogaayo casuumada fara badan uu soo sameeyay casuumadiisu la Hargeysa waa taxnaayeen maaha tan ceergaaba qura hamoodina marka Faysal aad baan ugu mahadnaqaynaa meesha waxa fadhiya sidii loo sheegay waa warsangeli ogeyslabe hadiyo jeer ogeyslabe waa laga tagaa waa abtiyada weeyaan laga tagin marka meel la yimaado xafladda waa warsangeli ogeyslabe weeye waa laba reer oo isku mid ah weeye dad kale oo badhan oo martiina waa fadhiyaan waana mid aanu kugu lahayn oo dadku kugu lahaa meesha fadhidana waxa weeye beeshii reer ceergaabo weeye lama hebelayn karayo oo waayo dad badan baa dee jooga haddaynu reer hebel iyo kama geeyoonayno runtiina muuqaal gaara bay leedahayoo waxay ku tuusaysaa tan maanta in nabadgelyadii ay meel fiican marayso mar haddii la wada qadeeyo wax la wada cuno laysu yimaado la wada shiro waxa weeye waa guul boqorkuna dee waa boqorkii gobolka oo ama dadka oo mar hadduu bilaabay casuumaadii bilaabayo isdhexgalkii bulshada iyo barnaamijkii aad buu ugu mahadsan yahay boqor macsuumadaad samaysay inta isbaratay iyo inta isku faraxday baa ka weyn wixii la cunay Allah ku sharfo boqornimadaadana Allah sharfo cirdigaagana Allah sharfo sharaftaad dadka u haysaa waa sharaftaada waxaan kaloo u mahadnaqaynaa marti sharafta waayeelka soo galay iyo inta deegaamada ku soo noqoteena aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaanu ka garanaynaa in dadkii kalena daba joogo oo dadkii isu soo noqon doono ragga iyaga qaarkii waaba qoodaysanay kulli nabad baa laydinku dilayaa dadka waaba la iska leenaya dadku si allu isaga dhimanaya laakiin ninka isagoo nabad ka shaqaynaya ama islaax ka shaqaynaya ama beenaas ka khayr gacanta kula jira dhinta waa ahlu janno waxaan leenahay cid kasta oo gobol Sanaag degi jirtay khaasatan degmada Ceergaabo nin dhow iyo nin dheer
gogashu weydiin taallaa laakiin maxaa lagu kala bedelan yahay reerkanu reerkii ka soo jawaabay madaxweynaha u soo jawaabay yidhi gogasha waanu aqbalnay weeye waa ogeyslaba iyo warsageli aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin xafladii horena waa idinku xusnay beelaha kale walaalaheennana insha allah waxaynu ka filaynaa waqti dhow iyana inay yidhahdaan gogasha waa imanaynaa ilaahay idankii saasaynu ka rabnaa caloosha xumaan cid ugu haysaa ma jirto maanta waxaynu helnay dawlad wanaagsan dadka dhegaysanaysa madaxweyne qaniya oo qalbigu buuxo oo dadkoo dhan raba balse waxaan ku dadaalay ugu dambayn in ceergaabo la iskugu yimaado in bulshada ceergaabo ay midoodo in ceergaabo isku soo noqoto in maanta sidan loo wada fadhiyo qayb weyn baanu ka qaadanay waan runtii dee waa waajib shukri calaa waajib oo waajibna saarnaa in ceergaabo isku soo noqdaan ma nihin dad kala kaxeeya dadka balse waxaanu nahay dadkooda isku soo celinayo raba in heer ceergaabo dib u midoobaan oo ceergaabadii quruxda badnayd ceergaabadii beelaha badnaa deganaayeen runtii cidna ka maarmi mayso taasoo uu horseed inoogu yahay madaxweynaheenna khayrqabaha ah ee gogosha nabadda inoo dhigay haddii erey hore uu baxay oo halhaysa shalay oo ahaa gala dagaalka inagoo ka duulayna afkaarta madaxweynaha uu ku shaqaynayo go'aanada uu qaatay iyo sida rabo mustaqbalku inuu noqdo dhammaan meel kastoo dunida laga joogo waxaan leenahay gala nabadda halkudhigeennu maanta waa gala nabadda insha allahu biidnillaahi tacaala qof kastoo inaga midana waxaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo sidii nabadda aynu ku gaari lahayn waxaa milge iyo maamuus mudan sidoo kale oo aan si gaara ugu ducaynayaa suldaan siciid cabdisalaan oo u guntaday in dadka walaalahay walaalnimadoodii wadajirkoodii darisnimadoodii iyo waxisaanshahoodii uu ahaado midaan abad salguurin sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa guurtida faraha badan ee kula shaqaynaysa iyo xubnaha wasiirada ah ee reerka ee ku matala somalilan oo u guntaday siday dadka u walaalayn lahaayeen habeen iyo maalin oo ugu dambeeyey wasiir calbuureed oo ka soo galay safar aad u fadheer ilaahay waxaan ka baryayaa dhammaanteen inuu midigta kuwii isqabsada inaga dhigaa in badan bay dadku eegayeen oo lahaayeen ceergaabo maxaa ka jira ceergaabo waa nabad dadkeeduna waa nabad kuwa maqayna nabad bay ku soo gelayaan kuwa joogaana nabad bay ku soo dhoweynayaan in badan haddii galbeedka la eegayey maanta aragtida la eegaya waa halkee waa ceergaabo ceergaabo waxaan leenahay safarka iyo dadka imanaya madaxda inoo imanaysaa waxaan leeyahay caleemo qoyan iyo ubax qoyan iyo soo dhoweyn baa laydinka baahan yahay in yaroo kaftal aan ka horaysiinayaayo hadday abtayaashood joogaan maanta maxamed ducaale iyo ninka la yidhaahdo maxamed bulxan aniga abtayaashay maanta ma joogaan maanta way naga maqan yihiin insha allahu se waxaan rajaynaynaa inay yimaadaan insha allah bismi illaahi kariim waa dalkoodii waa ehelkoodii waa dadkoodii insha allah waa iman doonaan insha allah shirarna waa ku jiraan nin walba gurigiisa iyo diyaartiisa wax u dhaamaan ma jiraan waxay la tahay gogashii madaxweynuhu dhigay albaabkeedii maantuu furmay waa furan yahay shirkaasuuna ku furmay anigu bari baan ka imi dhinaca bariga baan ka imi degaamadii gobolka oo bariga ah baan gaaray marka dadkii ciddii iyo degaamadii aan tegey iyo magaalooyinkii aan tegey waan ku soo wacyigelinay diyaar bayna ahaayeen boqor insha allahu dad badan baa inoo ka iman doona nabadgelyana waa ahaayeen aad baa loo dherarsanayey oo loo eegayay shirkan inuu furmo waxay la tahay wixii ka dhiman odayaasha xagga laga sugaayey oo dee jiifafka inala jooga odayaashii kale iyo suldaankii iyo raggii xaggan aynu ka sugaynana waxay la tahay in dabada laga galo sidii xilli dheer u iman lahaayeen